السلام عليكم قرعة kusoo dhawaada videogan cusub videogan insha Allah waxaan ku falanqeyn doonaa bitcoin BTC anagoo fiirinayno high time frame ilaa iyo low time frame teeda kale waa in aad qof ay soo weydiiyey marka sidaas dadku xasabay dadka kale uu la qaybso marka kusoo dhawaada high time frame xaaladan baan ku jirnay suuqa wuxuu yimid zoonkii ugu horeeyay oo dhammaantii liquidity baa ku jirta hadduu kaas jabiyana liquidity xataa ma badno because waa un hal candle waayo kana already qaado kuwaan inta oo dhan kan iyo kan weeyaan marka inay iyaga celin karaan baa laga yaabaa suuqa oo actually saas u dhaqmo oo ay wiikyadaas celiyaan laakiin dambeedna kuma celinayo xogaa inuu waxa weeyaan sudiya basle ama inuu toos inta u dhimaado which is another high problem okay waxaan tegaynaa marka weeklyga wuxuuna tusayaa weekly sida ujeedid wuxuuna tusayaa uu selka sellerska inay control ku hayaan suuqa oo weli iyaga ay haystaan they're not showing any weakness movementka wuxuu ahaa movement xoogan movement ka yara xoog yar kuwaan markii loo barbardhigo which maxaa la dhahaa can mean something like weli iyaga ayaa haya control unless uu baayiga asagana sameeyo sidaas oo kale wax xoogan sameeyo malin maayo dhawaanahan inaan arkayno bullish market waynu isu diyaariyaan dhahno okay so okay marka waxaan tegaynaa daily time frame markaa tegid inta waxaan ujeednaa trade cash okay week inta waxaan ku sameeyay three touches boom okay three touchka waa aad u fiirsha markuu flagsan camal sameeyo okay kabacdi waxaan dhihi karnaa meeshan already gudahaneeto joog buu kusoo sameeyey qofkii sal kasoo qaadan aniga ma salgaray suuqa waayo kashkeyga bisa ku shaqaystaa so cash only baan ah haddii aad tahay qof leverage that's another story aniga leverage ma isticmaalo because of shakigeeda dartiis okay waxaan sugayaa marka waxa weeyaan horta jooganeeto wuu soo qaramsaday hadda jooganeeto high time frame ayaa helay kaasna waa la jabsaday so su-aasha taala marka waxay tahay inkastoo fiiri haddaan soo fiirino high time frame waa kala midaa higher low jabsaday ujeedaa sidaas darteed kuwan waa lower time frame laakiin kuwanintu waa high time frame sidaas darteed iyaga joogooda waa inta weeyaan change of directionkooda inta weeyaan marka hadda wuu jabsadeen waxaa laga yaabaa samaynayo suuqan pullback taas ayaan xisaabina insha Allah tacaala so the first thing we do waxay inaan soo dhigano equilibriumkeena ilaa inta aan fiirino suuqan intuu jihisanaya inta waxaa ku jira imbalance I don't know if you can see imbalance ma inta ku jira imbalance waxa waaye suuqan order blockiisa lasoo xirin oo qaaq sameeyey meelaha dadka oo suuqa dhaqaajinaya ee raadsanaya marka qaarkood meeshaas uu kasoo xirfirana marka qaarkoodna order blocki meesha uu kusoo xiran taagaya so order block is the zone weliba kan xataa oo farxayaa salaftiis they will become too many be too detail لكن كان actually إلا أنت واحد صح واحد ما أدخل يسجل قبل سنة درتين صار من رقم وين ودور حبينا صورنا على حبوين هذا زون كان مركب المعنويان حالة أنت وحاس ليه efficient ممكن يوجد واحد imbalance مركب حنا قلنا ساعة liquidity يبري كمان خمسة كربون حتى okay
Okay, so hadda marka xaaladan waanu aragnay. We go to lower time frame. So haddaan rabno inaan kalfirino, the best option will be suuqan nudanka meelahan tago korkaas uusan aadin. Micnaheedu korkaas inuu aadaa waa just weliganeen intuu meelahan aado inuu haddana jabsado. That will be a good sign. Okay? We'll soo arkayna insha Allah wuxuu sameyn doonaa. So let's go to 4 hour. 4 hour markad insha Allah zoonkaani tahay xooga saarayna. Okay? 4 hour marka up and down kiisa. Lower kan idinka ay sameeyaan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. وتاس معناه maxaa weeyaan inta jac waa oo low. This must be higher. Boom, boom, boom. So suuqa markuu zoonkaas ahaa wuxuu sameeyey inta ilaa inta waxaa ii socdaata suuqan inuu ka soo kala fireynayo 50%gan zoonkaas oo dhoblogyada yaalo. So I will say this blue candle. So this blue candle seems the cleanest. Okay, kana soo taabtay noqday kana kan wiigan ayuu soo buuxshay. Yeah, do that and then wiigan ayuu soo buuxshay. Okay. So hadda marka suuqa muxuu sameynayaa? So this can be a good inkastoo uu yahay very efficient. Okay. Let's do this week. So suuqa waxaan jabsaday zoonkan. Okay. Zoonkan ayuu jabsaday. Markaan aadna marka 1 hour-ka zoonka soo taab wuu kala fireeyey. Wuxuu kala fireeyey inta wuxuu ku samaystay joog wuxuu ku samaystay uu noqday uu dhaqaaqay wallahi bum 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 high low high ku jira. So this could be the place to break. So this can be the zone. Haddii kan suuqa wuu ka kala fireyn karaa. Like waa inuu inta jabiyaa si aan u aragno hadduu sel aad u socdo. Okay. Marka inta liquidity ayaa fadhida. Intana liquidity ayaa fadhida. So su'aasha taal waxa waa liquidity-yaashan muu raadsanayaa kow mise hoos buu aadaya labo. So hadduu hoos aadayana intuu socdaa. So أنا waxaan isleeyahay haddaan 1 hour-ka ku noqono. This can be a good place suuqa sel looga soo diro. Okay. Waayo hadduu korkaas aado waa another maxaa lahayd 3 flag then waxaan rabi lahaa mas wuxuu yahay marka the best option for us waxay ahaan lahayd suuqan in uu noo soo kala firay uu loogan jabiyo. Okay, so markaas waxaa helnaa wax kala fireyna. So wuu la laaban doonaa ma inuu hore ka kala fireynayo laakiinse it will be a good place to be. Okay, so marka suuqa muxuu samayn karaa inta line basket-kan xisaabno. Haddaan xisaabno meeshaas suuqa ku istaagayna moogaan 15% 15 minutes-kan tegayna. Okay. hal meel taabtaan uga klikeyga aad buu quick u yahay. Okay. So marka saan u fiirista marka impulsive-kan baa dhacay meesha imbalance baa ku jira. Okay. meesha imbalance baa buuxa ujeedada. sidaas darteed order blocker can be 50% inuu dhex yaalo which is an amazing place to be. zoonka inuu soo taabo. soo taabanaya marka su-aasha
That's a good question. So aniga laba jid ba ii banaan. Okay, jidka koowaad waxa weeye inaan dhaho hadda wiigan ayuu jabinayaa inuu saan usoo jabsado waxay noqdo kabacdi zoonka in imaado. Okay, oo haddana ii kala fireeyo korkaas aado markaas soo aado. That would be the best option. Okay, the option ka aan isdhihi karo liquidity wixii dhan uu soo arursaday waaye meeshan liquidity buuxdo soo liquidity-yaasha inuu soo cuno amase inaan dhahno liquidity ayuu qaramsanayaa koo hadday saas tahay pullbackan meesha ku jiro pullbackan meesha ka baxaya so waxay noqonaysaa marka inuu liquidity-daas soo cuno. Okay, markaas loo kala fariisto tooskiisa koowaad sidaas darteed labadaas option baa furan marka markii laba option furan yihiin macnaheedu waxa waaye suuqaaneeto waa la isku haystaa is not clear waxaan jeclaanaa inaan ku dhex waa liquidity miroodadis naqligu kitaal soo cuna meeqa qofood dad baa u qaatay soo qaransaday kuma nool meesha so sidaa darteed anaqas leeyahay this can be a good option uu kusoo xirto imbalancekiisa uu baayigaas noo aado markuu uu jabiyo weliba joog waayo joog hadduu jabiyo inuu soo noqdaa joogi. Okay, joog hadduu jabiyo waa inuu joogi soo noqdaa sidaas darteed inuu saas sameeyo aansan ahayn inuu intuu baxo liquidity-dan toos u abaarto hadduu liquidity-yaasha abaaranayana macnaheedu waxa weeyaan it's just wait liquidity-yaasha inuu toos u abaarto korkaas ka dhacay. Okay, أحسن عمل suuqa sameeya is the best. marka waa laba direction waan is leeyahay iska soo kala horjeedaan. Okay, so waxay ku xiran tahay liquidity abaaranayaan yaa suuqa wado awood may leeyihiin inta jac waxaa ujeeda baayigan awood leeyahay laakiin low time frame awood high time frame awood ma laha high time frame dad ba u socda inay wax soo xirxirtaan institutional investors ah so high time frame selka ah xaaladahayo low time frame baayigiiba meesha wax lagu qaramsanaya marka this option ay noo banaan sidaas darteed waxaan sugnaa waxa weeyaan in uuna siiyo saan inuu inta jabsado then I can say meeshaan usoo socdaa haddii kalena inuu korkaas aado uu korkaas nagu siiyo kala fileen ama marka intaas ayaan kusoo keenaya video marka aad u dheeraado waa inuu intaas waa bilaahi tawfiiq okay sorry intaanan dhameynin yaraadi ahaana haddaa rabta inaan suuqan sal usoo markaan sababta usoo garaynaysa waa macnaheeda leverage bias I don't know if I have to give you advice laakiin aniga sel ma aadayn haddii uusan meeshan jebin lahayn so inuu inta soo jebiyo weeyaan kow saasee u tiraahda meelaha salka maraadsan kara oosan ahayn inuu baayigaas ku dhaco markaaseed unoo sameeyo reverse intaasoo ku ekeenay marka waa bis wabilaahi tawfiiq